السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرديد قالي أكسو دوادا عشر كلو حيسالة وعن رجيني إن شاء الله عشر كارينا كفا إيدي دونتين هدو إلهي مايدهن إن شاء الله جانا لكنا هلتها غيرو الله سي شير غريا عشرة هلكن عن صدقو سي أردي فربضان وأوباهن أيو غاران آدي يدو مهسنتين عشر كسو دوادا عشر كان حيوان واه you are the only one أذيك كلي أياجر أوكي وأراه أي جبر ليه جرتي قروح بدن أو شيء كذا دنبا أي كوسا ليسنتها marka sheekada bilaawata waatana once upon a time waqti hore waayidii hore there was waxaa jirtay a beautiful lady gabar qurux badan whose beauty taasoo quruxdeeda could cause ay sababi kartay a coup afgambi in a country wadan macnaha si gabadhan loo helo quruxsan wadan waa loo afgambin kare if not haddaysan ahaynba a whole continent qaaradda dhammaan this lady gabadhan used to tell ayaa waxa uu sheegi jirtay every man kasta who proposed to her a marriage kaasoo u soo bandhiga guur you are the only one keligaaga ayaa jiro macnaha qof kasta u taga oo dhaho qofkii waa qurux badan tahay waan kaa helay inaan ku guursadaan rabaa sheeko waxay leedahay adiga bas ha jiro cid kale ma jirto okay yusuf oo taga axmed oo taga ana camal oo taga qof kasta waa la soo siinaa macnaha warqadaas agtaala tartiibka oo lagu dhiibaa madaxa ku wareera marka waxaas leedahay qoftan baa dahashay waa adig kaliya jira qarso then Pegas tuugsadayaashii stopped begging waxay joojiyeen inay tuugsadaan xitaa macnaha nin tuugsaday rag damac kama dhamaado mugta wax la aad u ceeb ah laakiin meesha ugu hooseysa laga soo qabanaya macnaha qof kuwa tuugsanaya xitaa waa damaceen gabadhan okay waiters kuwa kabaleeriyaasha ahaa okay shushayners okay kuwa oo kabaha tirtiri jiray blacksmith kuwa biraha tumi jiray iyo wixii la midka ah way gabadhan way damceen qof kasta u tagaan waxay yiraahdeen you are the only one marka dhamaantood all of them marka stopped waxay joojiyeen working shaqadii way joojiyeen waxa laga carraa kaliya isleeyihiin maxaan la dhihi sheeg qofkan shaqadan adoo ku jirto amaad ii sheeg ay ku aragtaa waayo nin kasta markuu gabar rabo inuu shaqaansado xaqiiqdiisa dhabta uma sheegayo Soomaaliya xukuumada gabar been lagu soo xargeliya runo waa lagu dhaqaamaano waxa ay ahayn oo iska dhigaya deen hadhow isagoo shaqadii reality ku dhex jira haday aragto xusleeyahay ama lagu booda marka qofkiisa shaqada waa joojiyay marka then and every man nin kastana wanted wuxuu rabay to win inuu ku guuleysto the heart qalbiga of this queen ee boqoradan among them waxa kamid ahaa marka dhalinyaradan waa Ahmed and Ali Ahmed iyo Ali kamid ahaa Ahmed was a tycoon man Ahmed wuxuu ahaa nin qani ah إلهي باقاني إلهي باتاجرة ننتاجر بوها but لكن علي was wealthy in brain علي لكن مسكحه تاجر كام معناها أقوم بولها after a lot of struggle هل جندير كذب only أحمد and علي كلية أحمد يا علي reached يا سوغاري the final lap okay ورقي وقدم بي جبدها أحمد يا علي أساس سوغاري أحمد مركه promised wuxuu u ballan qaaday gaal gabadha that he will build for her inuu u dhisi doono a classic house guri casri ah buy for her uu soo iibin doono gold ornaments okay ornaments waxa la isku dhahaa dhagadaagaha necklace-ka isheeg farantiga ringka baashan la gashto isheeg gacanta jijimaha waxyaabahaas dhamaan oo dahab ka samaysan ayaa maxaa la dhihi jiray ayaan ku keenay ornaments baalahaas la isku dhahaa gold oo dahab ka samaysan but لكن Ali was trying wuxuu isku daayay to convince her inuu qanciyo ayada oo uu ku qanciyo that love jacaylka is better than money inuu macnaha lacag uu ka qiimo badan yahay wuxuu leeyahay ninkan lacagta la gariirayo waxba arkin aniga ku jecel aniga wax walba ku sameynaya jacaylka ayaana ka awood badan lacagta ayuu ku qancinay marka qeybaha dambe ee cashirka insha Allah waxaan ku arki doonaa yaa guuleystay Allahu musta'an meeshana marka typically waxa tartamaya aqoon iyo hanti baa tartamaysa markuu wuxuu guuleysto waxa dhacana ma arki doonaa qofka isleedahay uu guuleysto doona commentiga noo reeb si share garay cashirka aad u mahadsantiin